munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigay waxqabadkii sanadka 2020 ee Akademiga Goboleedka af Soomaaliga ee AGA ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. xafladda waxqabadka Akademiga Goboleedka af Soomaaliga ee AGA ee sanadka 2020 oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, wasiirro qaar ka mid ah madaxda jaamacadaha dalka, mas'uuliyiinta Akademiga Goboleedka af Soomaaliga ee AGA iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana intii ay socotay munaasabadda lagu soo bandhigay madasha dukumiinti cadeynaya waxqabadkii sanadka 2020 waxaa jirta iyaduna madasha AGA ee horumarinta afka hooyo iyo hal abuurkiisa. madashan AGA ee horumarinta afka hooyo iyo hal abuurkiisa waxaa la daahfuray sanadkii 2017. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay madasha, iyagoona ku ammaanay Akademiga Goboleedka af Soomaaliga ee AGA doorka ay ka qaadanayaan ilaalinta afka hooyo. laakiin aniga waxaan hoosta ka sii xariiqaa laba arrimood oo aad muhiim u ah oo ummadan Soomaaliyeed si kasta hadii la yeelay laga qaadan waayo oo halka laga xusay waxa way afka iyo diinta. maxaa yeelay afka sidaan ogsoonahay Soomaaliya isticmaal si kasta uu u galay, si kasta uu u qaybiyay waa ka tirtiri way af Soomaaliga. maxaa yeelay haddaad fiirisaan dalalka dariska nala ah waxaad arkaysaan waxay ku hadlaan afaf aad u badan ay ku hadlaan, waxay isku afgartaan sida la xusayay maanta af Ingiriis, Faransiis, maxaan ku yahay Spain, Spanish, Talyaani waxa la isku afgartaa. laakiin annaga ummadeena maxaan ku yiraahdaa maanta afka isku afgarto waxa way af Soomaaliga. af Soomaaliga runtii mashaakil kama taagna, maxaa yeelay hadduu yahay mid maanta maxaan ku yiraahdaa la jiido iyo mid la adkeeyaba. hal yar kaliya oo itaabtana waa idin sheegay. halkan markii ahayd alf la kordhaba alf la hoos dhigo inta soo istaagta kaliya wax badan inay idin tilmaantaan jeclaan lahaa. nin dhalinyaro ah kuma jirin marka danqashada uu leeyahay afka halkaasaad ka fahmi kartaa. waa intii la soo kulantay afka Soomaaliga qoraalkiisa. taas waa midda labaad. af Soomaaliga weligii waa jiray laakiin waxaa la raadinaya kaliya in la qoro. runtii waana jeekama inta ujeedaa koran adiga idmiinis waxa way ereygii baaris ayaa laga tagay markii lagu yiraahdo waa lagu jeekamayaa inta istaagya يعني شكلنا لو سمينا already waxa waaye kalimad baa dhimatay oo Soomaali ah ya marka qofka markuu kalimad oo ajnabi u isticmaalo kalimad Soomaali ayaa meesha ka baxayso. marka haddaanan loo hiilinin afka oo faragelinta iyo duulaanka dhammaan lagu wada yahay siyaadadeena qaybta siyaadada ama sovereignty ayuu afka ka mid yahay. الحي حي بلسانه أي يرنيكي شاعرها ورنيك النولو وحد كناش هاي وأفكار إذا أبيد اللسان منه قد أبيد هذه أفكار لقى بإيو أدينا بعض بعضي أبوانين الصومالية فنانين وحوين بي هاي عندنا sidoo kale waxaa madash ka hadlay gudoomiyaha Akademiga Goboleedka af Soomaaliga ee AGA Maxamed Daahir Afrax, isagoona mahadcelin u jeediyay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle iyo ganacsade Xuseen Duwo oo uu sheegay inay xarun u dhiseen Akademiga Goboleedka af Soomaaliga ee AGA. inta suurta gelisay muxuu ahaa ayaan u soo socday inaan iraahdo mahadcelintooda ayaan maarta hoosta ka sii xariiqaya xagga mahadcelinta laga soo bilaabo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku deeqday yani xarun meesha dhulka laga dhisay muxuu ahaa akademiyada kuna deeqday inay nus bixinayso yani muxuu ahaa qarashka lagu dhisi doono. inkastoo ay tahay in waxyaalahaas aan leeyahay weli waxaan isku riixriixayn Cabdullaahi iyo wasaaradda maaliyadda asaga ma aha wasaaradda maaliyadda, laakiin waan rajaynaynaa hadda meel fiican bay maraysaa. laakiin cidda si la taaban karo hadda yani wax يعني la taaban karo oo ah waxa lagu dhaqaajiyo oo halka ku marayso muxuu ahaa ku mahad leh waxa weeye waa dawladda Jabuuti iyo hogaamiyaheeda gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Umar. marka madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo sidiisaba caan ku ah
hiilka uu had iyo jeer la garab taagan yahay horumarinta iyo ilaalinta afka hooyo iyo dhaqanka ummadda iyo aqoonta iyo aqoon faafinta yani mar walbaba hiil iyo la garab taagan ayaa hiilkiisa waxaa ka mid ahayd uu afka ugu hiiliyo in uu akadeemiyada asaaskeedii hore iyo dejinteedii markii hore Jabuuti iyo markii dambe maaragtay muxuu ahaa dhismahaas yani oo hadda uu ku abaalleeyahay inuu socdo intaba marka magaca akadeemiyada yani mahadcelinta asaasan maaragtay uu mudan yahay runtii in mar walba cidii ehel u ah yani afkan iyo halabuurkiisa inay abaal u hayaan iyo maaragtay mahadcelin isla arrintaas. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube isagoona ku amaanay waxqabadka akadeemiga goboleedka af Soomaaliga ee AGA. akademiyadu shaqo fiican bay noo haysaa aan taageerno dawladahaana waa taageeraynaa wasaaradda maaliyaddana way nala joogtaa Dr. Qalooc bay nala jooga dadaalka ay bixisay dawladda federaalka Soomaaliya ee hadday tahay dhulka hadday tahay taageerada hadday tahay ka qayb qaadashada waa sii wadaynaa dawladahan waana sii xoojinaynaa waxa kale aan halka fursaddan aan uga mahad celiyo dawladda Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna inagala qayb qaatay hawshan iyo akademiyadan iyo waa runtii waa waxaynu wada leenahay waa hanti aynu wada leenahay waa afkeennii hareerahaynu ka joogaynaa madaxweyne Ismaaciilna mar kale iyo dawladda Jabuuti iyo shacabka Jabuutina waa u mahad celinaynaa. Usmaan Ibn Briisa, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.